saddex iyo toban beri oo dagaal ah iyo natiijadii la rabo aan la gaarin. Qof walba iyo cid walba oo ku lug lahayd hadda waxay raadinaysaa qaabkii uga dhuman lahayd dagaalku waa uu weynaaday isla markaana heer caalami ayuu gaaray. kaabayaashii dhaqaalaha ayaa la iska bartilmaameedsanaya isla markaana wax walba oo la awooday ayaa la isku sameeyay. dhibanaha ugu weyn waxay noqdeen ciddii soo duushay Israa'iil iyo Mareykanku. Israa'iil juuqda ayay gabtay, ra'iisul wasaarihii dalkaasi waa la waayay, saxaafadda xitaa soo mar istaago. Donald Trump bootadiisu mar walba waxaa u soo bootaynayo Cali Larjani oo hadda noqday xiddiga iyo saameynta ugu weyn ee hadda Iiraan ay ku dagaalamayso. dabcan hadal walba oo uu sheego waa uu beeniyey. natiijada Donald Trump oo mar walba bootada ku salaysan jawaab ayaa loo helay. wararkii ugu dambeeyay soo baxay waxaa ka mid ah in ay nooshahay haweeneydii u dhaxaysay Ayatollah Ali Khamenei oo dhawaan ay sheegeen Mareykanka inay ku dileen halkaasi duqeymihii ka dhacay. sidoo kale war-saxaafadeed uu soo saaray hogaamiyaha cusub ee kacdoonka Iiraan ninka la yiraahdo Mujtaba Khamenei wuxuu sheegay in saldhig walba oo Mareykan in la xiro qasab ay tahay dagaalku sii socon doono. Cali Larjani oo saacado hore hadlay ayaa sheegay in Mareykanku haddii ay awoodaan maadaama uu ku faanay Donald Trump saacadii la soo dhaafay inay saacad ku qaadan karta in ay xiraan korontada Iiraan ayaa sheegay haddii ay awoodaan inay xiraan 30 daqiiqo ay nagu qaadanaysaa yiri gobolka oo dhan inuu mugdi noqdo waana sida kaliya hadday sameeyaan aan ku ugaarsan karno ciidamada Mareykanka meel walba ay joogaan aan ugu teegi karno. dabcan Iiraaniyiintu waxaad moodaa inay dagaal muddo dheer u diyaar garoobeen. Abbas Araghchi ayaa sheegay in wax diblomaasiyad aysan Mareykanka la furin iyadoo uunan bixin dhibaatooyinkii iyo khasaarihii uu ka geystay dalka Iiraan. dabcan dagaalkan waxaad u muuqataa in hadda Donald Trump uu raadinayo qaab uu uga dhunto maadaama markii hore qorshaha uu bilaabay ay ahayd in saxaafadda indhaha Mareykanka uu ka leexiyay Epstein File uu Donald Trump aad ugu lug lahaa. hadda Congress-kii iyo Senate-kii Mareykanka waa ay ka dhex tafatay isla markaana waxaa la arkayay warbaahinta ay soo qaadanaysay hogaamiyaal senatarre iyo Congress-ka Mareykanka ka tirsan oo shacabka ku boorinayo in kabi ahaanba lacagtooda aanan lagu caawin Israa'iil isla markaana ay qalad tahay in la weeraray Iiraan. dabcan Donald Trump hadda wuxuu raadinayaa diblomaasiyad uu dagaalka ku joojiyo isla markaana wararka ugu dambeeyay waxaa sheegayo Witkoff iyo Jared Kushner inay waceen qaybo badan oo kamid ah bariga dhexe ama diblomaasiyiin bariga dhexe kuwaas ay sheegaan in lagu soo noqdo miiska wada hadalka. Europe ayaa iyaduna raadinayso wadadii lagu xalin lahaa dagaalkan maadaama dagaalkan uu sii daba dheeraan karin. dalal badan oo Europe kamid ah waxay sheegeen in kabi ahaanba la yareeyo isticmaalka shidaalka iyo waxyaabaha la xiriira tamarta. sidoo kale qaybo badan oo bariga dhexe kamid iyo Asia ay waxa la sheegay in iskuuladii iyo goobihii shaqada iyo baabuurta intaba la istaajiyay. dagaalkani dagaal aad u xun ayuu sii socdaa. Israa'iiliyiintu waxay aad u sii duqeynayaan Beirut oo aad muddo in ay dhimasho aad u badan ka geysanayaan. Mareykanku wuxuu sameeyay faldambiyeed aad u weyn oo hay'adaha xuquuqul insaanka ay ka hadlayaan taasoo ah inuu duqeeyo mar kale iskuul ciyaal badan uu ku laayay. kullu Mareykanku waa uu qira waayo waa uu qariyay laakiin waxaad moodaa inuu Israa'iil uga siibanayo. Donald Trump iyo Benjamin Netanyahu waxaad moodaa in iskhilaaf iyo amni darrada ay soo kala dhex gashay maadaama Donald Trump uu yahay nin subaxiina qofe kalabtiina qofe xilli walbana isbedeli karo dagaalkana ka bixi karo. Donald Trump wuxuu sheegay saacado ka hor in Iiraan wax kale oo lagu sameeyay aysan jirin isla markaana dagaalku uu soo dhamaanayo wax walbana la duqeeyo awoodiina la weeqay laakiin taas waxaa diidayo kantaalada iyo diyaaradaha Iiraan ay weli ku sii duqeynayso bariga dhexe. gabi ahaanba saldhigyadii Mareykanka mid fiiw ma jira maanta uu gubtay. Mareykanka halkaas khasaaray ka wada lacagdii ugu badneed billions of dollars ayaa 7 bari oo kaliya uu ku khasaaray sida la sheegay. 7 kale haddii uu sii socdana khasaaradu aad ay sii badanaysaa. Mareykanka hubkii kaydka ayuu isticmaalaya dhaqaalihiina waa ku dabar yahay. gabi ahaanna senatarada iyo Congress-ka Mareykanka iyo waliba xukuumadda USA waxay Donald Trump ku dhaliilaysaa dagaal uusan qorsheysan inuu galin uu galay isla markaana Mareykanka uu soo qorsho ugu jirinba inuu Iiraan weeraro uu hore u ogaa inay tahay dawlad awood badan isla markaana aanan si fudud waxyaabo looga qaadi karin. balse Donald Trump ayaa ku adkaystay in ay halis ku ahaayeen danaha Mareykanka taasoo gabi ahaanba laga diiday. markii dambe wuxuu sheegay in gabi ahaanba kantaalada iyo hubka ay wax ku kumaado inuu burburiyo taasna waa ay suuroobi weysay. Israa'iil waxaa ku hoobanayo kantaalada Iiraan oo aad uga hoobanayo oo mar walbana qaarkood magacyo lagu qoraba si loo xasuusiyo dadka waxyaabaha qaar. Iiraaniyiintu dagaalkooda waa uu sii socdaa, diblomaasiyadan waa ay ku dagaalmayaan. lama oga inta uu sii socon karo dagaalkani balse waa la arki doonaa waxa ka soo baxo 13 beri oo dagaal ah wax natiijana aan la kala gaarin. Iiraaniyiintu waxaad moodaa in ay difaac adag galeen.